جماعة wanaagsan yaa leh guusha Soomaaliya ay ugu biirtay golaha ammaanka qaramada midoobay isla markaana ay ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golahaasi muddo sanadaan qaaradda Afrika ku matali doona ma farmaajo mise Xasan Sheikh muuqaalkan ayaan ku soo koobi doonaa dabcan waan aaminsanahay inaad isweydiinayso su'aashan si guud oo baraha bulshada doodaada uga dhalisay guusha Soomaaliya ay ka gaartay shirkii golaha ammaanka qaramada midoobay ee shalay ka dhacay dalka Mareykanka iyadoo Soomaaliya ay si rasmi ah ugu guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay in muddo sanad ah ay ku matasho qaaradda Afrika isla markaana Soomaaliya aysan wax loolanaa ay kala kulmin dawladaha Afrika oo isla markaana Soomaaliya si toos ah ugu guuleysatay kursigaasi waxa durba soo ifbaxay hadalhayn la xiriirta cidda leh guusha taariikhiga ah ee golaha ammaanka ay Soomaaliya ugu biirtay kursigan ay ku guuleysatay ma farmaajo mise Xasan Sheikh marka la eego taageerayaasha labada dhinac waa farmaajo iyo Xasan Sheikh ayaa baraha bulshada waxa dhan kasta qaybtiisu uu soo qoranay in guushan ay tahay mid dhankooda jirta tusaale taageerayaasha Xasan Sheikh waxay aaminsan yihiin in guushan uu Xasan Sheikh ka soo shaqeeyay halka taageerayaasha farmaajana ay aaminsan yihiin in guushan buddigu waa Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo marka hore waxaadan ogeyn in guushan lafdhabar uu ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ku matalaya danjire Abuukar Baalle ayaa arrintan juhdi badan iyo dadaal badan ku soo bixiyay si la mid ah dawladda Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxa ay buddigu ahayd guushan taariikhiga ahayd iyada oo dawladda madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo sanadkii 2018 ay gudbiyeen codsiga la xiriirta inay ku biiraan golaha ammaanka qaramada midoobay si ay kursigan u hanato Soomaaliya xilligaas waxaa dalka ra'iisul wasaare ka ahaa Xasan Cali Khayre labaduba qoraalla ay soo dhigeen bartooda Facebook ayay ku bogaadiyeen guushan taariikhiga ah madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud waxay ka mid ahayd dukumentiyadii uu ku wareejiyay Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka marka uu talada dalka ku wareejinayay waxaana xilligaas uu Farmaajo sheegay in madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud looga fadhiyo in sanadka 2024 ay Soomaaliya ku guuleysato kursigan aan joogtada ahayn isla markaana madaxweynaha dadaal badan uu ku bixiyo sidii Soomaaliya guushan muhiimka ay u maradgelin lahayd ugu dambeynna ay suurto gashay waase tallaabo madaxweyne Farmaajo soo bilaabay uu dhameystiray madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud mana jirto cid si gaar ah u sheegan karta guushan waa mid iskabaysa marka loo eego qarankeenana muhiim u ah dabcan waxa ka baxay shakiga iyo tuhunka la xiriira cidda iska leh guusha muhiimka ah ee qarankeena u soo yeetay ma farmaajo mise Xasan Sheikh waxa muuqaalkan aan ku cadeynay in guushan ay tahay mid si wada jir ah loo wada gaaray oo aysan jirin cid si gaar ah u sheegan karta ilaa dhamaadka muuqaalka haddii aad ila soo gaarto waan kaga mahadcelinayaa nabadgelyo daawada